haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan. wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa dhamaadkii bishii hore ku dhawaaqday barnaamij cusub oo muwaadiniinta Mareykanka ay ku kafaalo qaadi karaan muddo ku meel gaar ah qaxootiga doonaya dib u dejinta. barnaamijkan oo lagu magacaabay The Welcome Corps ayaa ah barnaamij tijaabo ah oo wajiyo kala duwan leh. barnaamijka The Welcome Corps waa adeeg cusub iyo fursad ay dadka Mareykanka ah u fidinayaan qaxootiga doonaya badbaado iyo xorriyad, taa beddelkeedana wax ka beddeli kara bulshadooda. sidaasi waxaa lagu qoray bogga gaarka ah ee mashruucan. si wada jira ayay kooxaha wax kafaalo qaadaya ay u soo dhaweyn doonaan dadka qaxootiga ah ee imaanaya Mareykanka, iyagoo u diyaarinaya guryo ku meel gaar ah, garoomada diyaaradaha ku soo dhaweynaya markay imaanayaan, carruurtooda iskuullada ka diiwaangelin doona, isla markaana dadka waaweyn ee qaxootiga ah shaqooyin la raadin doona, ayaa lagu yiri qoraalka bogga mashruucan la soo dhigay. garyaqaan Amiin Haruun oo arrimaha sharciga ka shaqeeya kana howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa sharaxaya waxa uu yahay mashruucan. colaado barnaamijkan cusub ee lagu soo kordhiyey barnaamijkii dib u dejinta qaxootiga ee dalka Mareykanka ee hadda loo yaqaano Welcome Corps waxaa lagu dhawaaqay waa siyaasad cusub ama policy cusub oo xukuumadda madaxweyne Joe Biden ay ku dhawaaqday gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ay rabto in ay ku soo kordhiso nidaamkii dib u dejinta loogu sameyn jiray dadka qaxootiga ee Mareykanku uu qaabilo ee uu rabo inuu dib u dejin u sameeyo. horaantii waxaa u jiri jirtay in maaragtay 11 urur ama hay-adood dadka ay dib u dejin u sameeyaan markii la soo baaro oo nidaamka la soo mariyo oo qofku Mareykanka uu soo galayo, in hay-adahaasi ay guryeyn iyo shaqageyn iyo la qabsashada waddanka Mareykanka 90ka beri ee hore ay qaban jireen. marka barnaamijkan waxaad moodaa si in looga soo lunjeexay barnaamij Canada ka jiro oo dadku ay hadal hayaan oo group 5 loo yaqaano. way isu yar eg yihiin, waxayna isaga eg yihiin halkii markii hore ay hay-aduhu dadka keeni jireen. dowladda Mareykanka ama xukuumaddan waxay rabtaa in maaragtay dadka Mareykanka ku nool ama deganaanshaha rasmiga ah haysta ama muwaadiniinta ah in ay intay group isu qabsadaan ay keenaan dad ama ay dib u dejin u sameeyaan communitiyadooda iyo meelaha ay degan yihiin dad qaxooti ah oo Mareykanku uu qaabilay inuu dib u dejin u sameeyo. sidaas ayaa hawshan ku bilaabatay. waxa uu kaga duwan yahay sidii hore waa inay dadkaasi shacabka iyagu intay xil qaamaan oo ay maaragtay waqtigooda ay huraan dadkaasi ay dib u dejinta u sameeyaan halkii markii hore hay-ado dowladda ay lacag ku siiso ay arrintan sameyn jireen. arrintan waa tijaabo cusub, maaragtay sharci cusub oo soo baxayna ma ahayn waa siyaasad ay xukuumaddan la timid. macnaheedu waxay tahay haddii xukuumad kala timaado inay sii wadayso iyo inay wax ka bedelayso iyaday u taallaa. marka waxaad moodaa dowladda Mareykanku iyada oo ka jawaabaysa dad fara badan oo muddo dheer xeryaha qaxootiga ku jiray, qoysas ay qaarkood horey dib u dejin ugu samaysay oo de ay aheladoodii iyo qaraabadoodii ka hareen, in ay rabto in ay fursad u siiso in maaragtay ay ballaariso sidii dadka lagu keeni jiray. hay-adihii dadka keeni jiray oo hore sidii bay u jiraan, laakiin tan waxay ku soo kordhisay oo kaliya in dadka ay iyaguna ay si iskooda intay shakhsiyada cayimaan ay dowladda ugu gudbin karaan qorshihii ay dib u dejinta ugu samayn lahaayeen, kharashkii ay ku dejin lahaayeen iyo waxaana ay maaragtay iyagu ay u qorsheyn lahayn u qaadan lahaayeen. mashruucani sida dad badani moodaan qof walba kama faa'iidaysan karo, waxaase jira shuruudo ku xeeran sida uu mar kale sharaxayo garyaqaan Amiin Haruun. marka dad badan ba waxay u malayaan maaragtay in arrintani qof walba uu ka faa'iidaysan karo, dad yar baa ka faa'iidaysan kara. waa qofku inuu qaxooti yahay, qofka qaxootigiina waa maaragtay waa in dee uu ka diiwaan gashan yahay waddan kale oo waddankiisa inuu joogo qaxootina uu ku joogo oo dowladda Mareykanku ay ku qanacdo inuu qaxooti yahay. waxaa kale oo iyadana meesha aan ka marnayn in intii baaritaan iyo vetting iyo maaragtay aragti iyo maaragtay baaritaan lagu samayn jiray dadka qaxootiga intaan la keenin, intii waa sidii un waxba iskama bedelin. dowladda Mareykanka ayay ka go'daa imaashinyaha qofka, laakiin markii waddanka yimaadaan iyo dib u dejinta iyo arrintaas ayay maaragtay ku hor leh. waxaa maaragtay dadkii caadiga ahaa ee u dacwoonayay qoys ama maaragtay qaraabo dhowkiis iyo ilmihiisii iyo xaaskiisii iyo taas iyadu waa sideedii. marka arrintan shaqo kuma laha, arrintan waxay khaas ku tahay qaxootiga dib u dejinta qaxootiga
marka sidaas dadku inay ogaadaan mar badan dadku waxay soo weydiiyaan qofku waxaan ka imid walaalkay waxaan ka imid walaashay waxaa maaragtay ma keeni karaa marka arrintani arrin uu qof keeni karo ma aha waa in dadku 5 qof iyo ka badan intay isugu tagaan ay qofka magacaabaan ay rabaan in dibadinta loo sameeyo qaxootiga ah inta iyagu cayimaan qofkaas waa qaxooti meel lu jooga annaga oo groupkan ah waxaan soo jeedinayna qofka inaan dibadajin u sameeyno haddii dawladda Mareykanka keento dawladda Mareykanka inay keentaan ka codsanayna taas weeye waxayna bilaaban doontaa nidaamkani sanadkan qaybta dambe qaybta hore waxaa lagu bilaabayaa dad maaragtay ay dawladda Mareykanka wax walba soo marisay oo diyaar ah ayaa hadda la soo qaadayaa qaybta hore laakiin sanadka qaybta dambe ayaa loo ogolaan doonaa dadkan volunteerkii inay iyagu iskood ay yidhaahdaan maaragtay dadkaasaan rabnaa inaan keeno waa arrintaas sidaas weeye runtii qoysas badan in badan kala maqnaa waxay suurtagal u noqonaysaa in maaragtay ay keenaan dad waxaa jira ka tirsanaa aabihii hooyo wada dhaleen oo dee ama guursaday ama da'doodu weynaatay oo qoyskii laga reebay oo aan wax kale looga reebine the requirementii dadka lagu keenayo qoyska un ka baxay hadda marka dadkaasi jaanis iyo fursad ay u tahay inay qoysaskaasi dib u midoobaan oo ay Mareykanku ay mar kale dibadjinkooda helaan cilmi waare oo ka faallooda arrimaha Mareykanka barnaamijkana si dhow ula socday ayaa isna sharaxaya waxa uu yahay iyo sida uu ku soo bilowday mashruucan. Colaad waa mahadsan tahay barnaamijkan Welcome Corps haddii aan si kooban kuugu sharaxo wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa 19 bishii January hadda dhamaatay sanadka 2023 ku dhawaaqay barnaamijkan muhiimadiisu waxay tahay in dadka qaxootiyada ku jiray muddo aad u dheer isla markaana Mareykanka dib u dejinta ka helay in dadka Mareykanku ay kafaalo qaadaan oo sponsor u sameeyaan isla markaana dadkaasi ay ka faa'iideystaan fursadda ay Mareykanka ku imaan karaan barnaamijkan in dawladda ay ku dhiirato gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda waxaa ku dhiirigeliyay ilaa iyo 3 barnaamij oo wasaaradda amniga gudaha ee Mareykanka ay fulisay isla markaana kuwa guuleystay noqday waxa ugu horeeyay midkii dadka reer Afghanistan ee laga soo daadgureynayay dalka Afghanistan markii ururka Taliban ay la wareegeen bishii Agosto ee sanadkii 2021 dad ilaa iyo 80,000 kor u dhaafay oo reer Afghanistan u badnaana dad dawladda Mareykanka la soo shaqeeyay iyo heladooda in la soo daadgureeyay dadka Mareykankana ay gacan u fidiyeen isla markaana dadkaasi ay soo dhaweeyeen oo ay sponsoreen barnaamijkaasi magaciisu waxa uu ahaa Welcome Allies marka waxaa la ogaaday in dadka Mareykanku ay u helan yihiin in dadka dhibaataysan ay soo dhaweeyaan waxa ku xigay markii Ruushka dagaalka uu ku qaaday Ukraine 24 bishii February ee sanadkii 2022 ee dhamaaday in dawladda Mareykanku haddana ay sheegtay in 100,000 oo dad reer Ukraine ay keenayso sidaa darteedna dadkooda halkan joogay iyo qaar ka mid ah dadka Mareykanka ayaa iyaguna gacan u fidiyay isla markaana dadkaasi soo dhaweeyay kaasina waxa loogu magac daray United for Ukraine waxa ku xigay barnaamij kale oo 2 sano oo cafis ahaa oo dadka Venezuela ka imaanaya maadaama dictatori uu ka taliyo isla markaana dhaqaalaha wadankaasi uu dhulka galay in dadkaasi 2 sano oo cafis iyagana loo fidiyo oo dadka Mareykanka ay soo dhaweeyaan marka saddexdaasi barnaamij markii ay guuleysteen ayaa dawladda Mareykanka gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ay ku dhiiratay in barnaamijkan Welcome Corps ay ku dhawaaqdo dadka Mareykankana ay u bandhigto fursadan ah in dadkaasi ay soo dhaweyn karaan oo ay kafaalo qaadi karaan cilmi waare ayaa mar kale sharaxaya wajiyada uu ka kooban yahay barnaamijkan iyo waqtiyada ay bilaabmayaan colaad barnaamijkan horta waa 2 waji wajiga u horeeyo hadda ayuu bilowday ilaa iyo bisha 6 ayuu socon doonaa waxaana dawladda Mareykanku ay sheegtay inay u baahan tahay 10,000 oo qof oo muwaadiniin Mareykan ah ha haystaan baasaboorka dhalashada Mareykanka ama green card-ka deganaanshaha rasmiga ah oo kafaalo qaada 5,000 oo qaxooti ah oo guud ahaan caalamka ka imaanaya isla markaana diyaar ah oo dadkaasi processkooda u dhamaaday oo diyaar ay tahay in Mareykanka la keeno waa wajiga koobaad ay dadka badan oo Soomaalida ay doonayaan inay ka faa'iideystaan bisha 6 wixii ka dambeeyay ayuu bilaaban doonaa waxaana dadku ay awood u yeelan doonaan inay yiraahdaan qofkaasi hebel oo qaxaradaasi qaxooti jooga laakiin ah
qof UN-ku inta Mareykanka ay u soo gudbiyeen waaxdiisa dib u dejinta Mareykanku dib u dejin u ogolaaday isla markaana tillaabooyinkii laga maarmaanka uu marsiiyey in qofka dadkaasi ay dhihi karaan 5 qof ama ka badan inay isku tagaan in dadkaasi ay kafaala qaadaan xogaa waxaad malaysaa inay Soomaalidu ay si qaldan u fahmeen barnaamijkan kafaala qaadka oo hadda dad cusub ay qaxootiyadii soo aadayaan oo ay doonayaan in kaararkii qaxootiga ay qaataan ma ahan barnaamijkan sida uu u shaqeynayo macnaheedu waxay tahay dadka qaxootiyada horay u joogay oo UN-ku qofka marka qaxootiga u yimaado UN-ku waraysi ayay ka qaadaan kadibna wadamada Europe Canada iyo Mareykan ayay u bandhigaan iyo Australia wadankii qaabilaya marka dadkan Mareykanku uu barnaamijkan welcome corps uu doonayo inuu uga faa'iideeyo waxay yihiin dadka horay qaxootiyada u joogay UN-kuna ay Mareykanka u soo gudbiyeen kuna dib u dejin u ogolaaday isla markaana dhammaanba waxyaabihii laga maarmaanka fuliyay oo qaarkoodna caafimaad dhowr jeer intay mareen uu ka dhacay amaba qaarkood falay suga ahaa oo coronavirus-kii uu xanibay isla markaana madaxweynihii hore Mareykanka Donald J Trump uu isaguna xanibay dadkaasi ayaa ah dadka ka faa'iideysanaya barnaamijkan welcome corps barnaamijkan ayaa saameyn xoogan ku yeeshay Soomaalida gaar ahaan kuwa eheladooda ay ku nool yihiin dalkan Mareykanka haddaba ma u fudud yahay sida la moodo waa kan cilmi waare oo arrintaasi mar kale ka warramaya colaado horta ma fududa oo uma fududa sida dadka Soomaalida ah ay u maleeyaan barnaamijkan waa process dheer 5 qof ama ka badan ayaa loo ogol yahay dadka Soomaaliyeed su'aalaha ugu badan oo ay soo weydiinayeen waxay tahay hal qof haddii aan ahay lacagtaasi la sheegayna aan awoodi karo ma keeni karaa waa maya 5 qof ama ka badan da'doodu 18 sano ama ay ka weyn tahay hal meel wada jooga oo hal meel magaalo jooga ma ahan xitaa inay gobollo kala duwan ay joogaan ayaa dadka sponsori kara marka qof dadkaasi background check ayay mari doonaan kuma xirna qofka lacagta bangigiisa ay ku jirto ama inuu shaqeeyo muhiimaddu waxay tahay in 5taasi qof ama ka badan ay isku tagaan isla markaana background check-kooda la eega dadkaasi inaysan iyagu wax dambi aysan gelin sida dadka la keenayaba loo soo baarayo isla markaana welcome plan-kooda ay soo bandhigaan qorshaha ay doonayaan dadkaasi inay ku soo dhaweeyaan marka calaa qof kasta oo la keenayo waxaa loo baahan yahay in loogu talagalo lacag $2,275 saddexda bilood ee ugu horeysa oo dadkan sponsoraya ama kafaalo qaadaya dadkan ay gacanta ku hayn doonaan saddexdaasi bilood kadib marka ay dhamaatana dowladda ayaa 9 bilood gacanta ku hayn doonto isla markaana barnaamijyada federaalka ee dadka qaxootiyada ay la keeno ay ka faa'iideysan jireen ay ka faa'iideysan doonaan marka saddexda bilood oo dadkan sponsoray ama kafaalo qaaday dadka qaxootiga waxyaabaha ay u qaban doonaan waxaa kamid ah in dadkaasi ay guri u sii qabtaan lacagtii kirada ka bixiyaan alaab ay u sii dhigaan xiliyadan qaboobaha haddii ku sii aadana cuntada iyo dharkii ay u sii diyaariyaan haddii carruur wataan in iskuuladii ay ka diiwaan gelin lahaayeen ay sheegaan in ay shaqo geeyaan in ay sidoo kale goobtii baska ay ka raaci lahaayeen ay tusaan haddii marka 12kaasi bilood saddexda bilood oo dadka sponsor ay gacanta ay ku haynayaan dadkan la keenay ee qaxootiga iyo 9ka bilood ka hor haddii qofkaasi intuu wadankii la qabsado oo laysinkii qaato oo baabuur helo oo qof isku filan noqdo dawladdu waa ay u fasaxi doontaa qofkaasi inuu cagihiisa isugu taago marka sida ay Soomaalidu u maleynayso ma ahan processku waa process dheer dadka kafaala qaadaya ay marayaan oo sidoo kale in ay form buuxiyaan in ay welcome plan-kooda ay dawladda u bandhigaan in sidoo kale ay airport ka tagaan oo dadkaasi soo dhaweeyaan marka ma ahan dadka waa kafaala qaadaya oo waa keenaya Soomaalidu sida ay u qaateen in qof waliba dadkiisii qaxootiyada joogay amaba kuwa cusub oo waligood qaxooti u noqon oo ay keeni karaan amaba sidoo kale in sida ay dawladdu ay ka damacsan tahay oo dawladdu in dadkan muwaadiniinta Mareykanka ay dadkan qaxootiyada ku jira muddo ay kafaala qaadaan oo ay soo dhaweeyaan maadaama dadkan Mareykanku aysan dadkan aqoonin dawladdu sidaas ay u damacsan tahay laakiin Soomaalidu waxay rabaan in dadkoodii qof waliba uu keeno marka qaabka dawladda barnaamijkan ay ka damacsan tahay iyo sida Soomaalidu ay u qaateen amaba ay rabaan inay barnaamijkan ay wajahaan xogaa waa kaaf iyo kala dheeri waana arrin loo baahan yahay in ay Soomaalidu ogaadaan haddii aan kuugu daro xogaa sharaxaad kooban aan kaa siiyo labada weji ee barnaamijkan wejiga koobaad waxa uu yahay mid hadda bilowday ilaa iyo bishii 6aadna socon doona marka dawladdu 10,000 oo qof ayay u baahan tahay oo si mutadawacnimo ah 5,000 oo qaxootiya oo diyaar ah in la soo qaado Mareykanka ilaa iyo bishii 6aad la keeno kafaala qaada marka dadku 5 qof ay noqdaan oo groupka ah iyagu awood u malaha inay doortaan dadka ay soo dhaweynayaan wejiga koobaad oo dawladda ayaa u keenaysa in qofkii ay rabto diintu rabana ha haysto marka wejiga koobaad waa kaama dooran kartid dadka lagu keenayo laakiin waxaad ballan qaadaysaa dadkan 3 bilood oo u horeysa inaad kafaala qaadayso marka waa wejiga labaad oo bisha 6aad iyo wixii ka dambeeya bilaabanaya wejiga aad doorashada leedahay
oo aad dhahayso qofkaas ama qoyskaas oo xero hebel jooga ayaan rabaa inaan soo qaado sidaan hore u sheegayna dadku inay noqdaan waa dad qaxootiya maraykankana dib u dejin ka haysta marka labada weji sidaasi ayay kala yihiin ilaa iyo bisha 6aad haddii aad isdiiwaan geliso macnaheedu waxay tahay dawladdu qofkii ay rabto ayay kuu keeni kartaa laakiin bisha 6aad wixii ka dambeeyo ayay dadku doorasho leeyihiin oo ay dooran karaan qofka ama qoyska ay doonayaan in loo keeno markii barnaamijkan lagu dhawaaqay ayaa waxaa soo badanayay dadka horay si iskooda uga tegay xeryaha qaxootiga ee Dadaab ee dalka Kenya oo hadda dib ugu noqonaya iyagoo ay ku abuurantay rajo cusub wariyaha VOA uga soo warramay xeryahaasi Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan barnaamijka Elayska uga soo diray Dadaab iyadoo maalmo ka hor wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay shaacisay in muwaadiniinteeda ay kafaalo qaadi karaan eheladooda qaxootiga kuwa caalamka qaybihiisa kale ayaa arrintaasi waxaa si weyn ugu farxay qaxootiga ku nool xeryaha Dadaab ee dalka Kenya kuwaas oo waqti dheer ku haminayay in mar uun dibudejin ay ka helaan dalka Mareykanka si ay uga baxaan nolosha adag iyo duruufaha qaxootinimo qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaa barnaamijka Elayska uga warramay sida ay u arkaan dhawaaqan ka soo yeeray wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ee ku aadan dibudejinta qaxootiga magacayga saddexaad waxaa waaye Cabdikariin Cabdullaahi Cabdinuur Cabdisalaan adigoo mahadsan marka koowaad marka labaadna waxaan dhihi lahaa arrintan arrin dareenkeen wax badan ka bedelo waaye maadaama aan sugayo muddo 10 sano boroseeska Mareykanka maantana ay soo cusboonaatay wax la dhahayo welcome course qaxooti walba dunida ku dhacday saaran inuu wadankaas haduu nasiib u yeesho inuu aadi karo haduu helo qof oo kafaalo qaadi karo maadaama aniga ahaa askale Cabdikariin oo ay ku nool yihiin walaalihii oo 4 gaarayso Mareykan ay joogaan waxaan jeclahay aan rabaa inaan dib u la midoobo qoyskeyga oo ku nool wadanka Mareykanka magacaydu waa Anas Maxamed Cali ku nool xarooyinka Dadaab waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama aan ahay arday kamid ah ardayda ku nool xarooyinka in muddo aan xaalada ku jiray dhameeyay dugsigii waxbarasho meeshana qaxooti iska tahay aad iyo aad u soo dhaweynaya ballanqaadkii kafaalaadkii inoo ballanqaaday dawladda Mareykanka sidoo ka dhawaajiyay wasiirka arrimaha dibadda taasna waxay noo tahay dhiirigelin weyn maadaama muhiimadii iyo waxa kaliya loo joogo waxa waaye cimilada in kuleelkan loogu jiray qaxootigan in la helo dib u dejin wadda saddexaad dawladda Mareykanka waa dawladda kaliya 70% hore u qaadi jirtay balse hadda cashuurteena lama soo koobi karay farxadeena waayo waxaan la ballanqaaday in macnaha qof walba qofkiisa uu soo qaadan karo wadanka uu keen karo 40 sano ee tagtay arrimaha dibudejinta waxaa maamulayay hay'ado dadka qaxootiga soo dhaweeyo iyadoo arrintaasi jirto ayaa maalmihii la soo dhaafay xeryaha waxaa soo gaarayay qaxooti horaan ugu diiwaan gashnaa xafiiska arrimaha qaxootiga kuwaas oo dib ugu soo laabtay xeryaha si ay u furtaan kaararka qaxootinimada oo horaan ugu xirmay magacaygu waa Andar Osman in badan waxaan deganaa xerada qaxootiga Dadaab Cabdisalaan oo dad badan oo xerooyinka ka tagay ayaa hadda dib ugu soo laabanaya xerooyinka qaarkooda Nairobi degay Gaars degay Muqdisho degay Ethiopia dad badan soo wacayo oo rabo dib inay u furtaan kaararkoodii sifa hadda ay group 5ka dadkoodii Mareykanka aaday ay u soo dacwoodaan oo buufs ay u helaan jans ay u helaan ay hadda ku baxaan arrintan buufskan hadda oo ay sheegeen dalka Mareykanka ay soo cusboonaysiin rajo weyn ay keentay isbedelka magaalada daarada gujiyo cusub ay imaaday guriyii waxay noqdeen qaar kiradooda sayt ay noqotay meel guri waa la isda wareegaya waayo dadkii rajo fiican asoo hadii qof dad buufs ay maqlaana waa bis oo dib ay u soo noqonayaan hadda kaararkii waxa arkaysaa 10 sano ka hor qofka ka tagay u dhahay kaarkiga ma furi karaa hadda boona qaadanayo asbuucan soo dhaafnay intaas oo kun ayaa la diiwaan geliyay qaxooti ah oo soo wada laabanayo dadkii dhalinyaradii qaarkood ka tashtay Soomaaliya ka helay shaqo hadda kaygoo kaarkood in loo furo dib ay ugu soo noqonayaan xerooyinka Dadaab maadaama wixii aad tahay waxa iska bixinaysa lacag oo aad ku aadi karto Mareykanka dadka ka tagay Kifali iyo macallay Uganda oo dadka soo wacayaan weydiinaya xaalka suu yahay iyo arrintaas ay u dhacayso nin kasto dadku waraysanaya meelaha fadhi ku dirka daarto waxa la isweydiinaya group 5 Kennedy group 5 Mareykanka keeba qaalisan keeba fiican keeba lagu bixi karaa waxyaabaha oo maanta lahaynta ugu badan oo qaxootiga la isweydiiyay waa taas dhinaca kale Siyaad Aadan oo kamid ah maamulkii hore ee xeryaha waayo badan u soo joogay nolosha qaxootiga ayaan weydiinay muhiimadda qaxootiga uu leeyahay go'aankan ka soo baxay dawladda Mareykanka ee ku aadan dibudejinta kafaalaadka ah ee la siinayo qaxootiga ku nool caalamka waa maasanta Cabdisalaan marka hore waa biyo dhammaantood waa salaamay magacaygu waa Siyaad Aadan
waxaan deganahay xeryaha dhadhaab gaar ahaan dhagaxley waxaan ahaa liidhaaskii hore qaxootiga waxaa la degaya 32 sano wallaahi aad baan usoo dhaweynaya arrintaas waa arrin ku dayasho mudan dowladaha kale adduunka inay ku daydaan mudan waxay u dhowaan kartaa Soomaaliya in gacan la soo qaaday oo lahobkeeda iyo niyadeeda iyo qalbigeeda la kasbanayo hadiiba la dhahay nin waliba ninkiisa hadda maanad qaado oo laga wareejiyo baahida iyo UN iyo wixii la soo marmari jiray wallaahi aad baan usoo dhaweynaa inkastoo qaxooti badan ay arrintaasi ku farxeen qaar ka mid ah qaxootiga waxay aaminsan yihiin in caqabad ay ka hor dadban tahay arrinta kafaalaqaadka maadaama ay jiraan qaxooti aan cidi ugu maqnayn dalkaasi Mareykanka waa mahadsantahay Cabdisalaan qaxooti aan ku dhashay horta fursad Mareykanka u bixiyeen way jirtaa fursadda dad waxay ku tahay ay ku adag tahay dadna waxay ku farxeen oo dad ba ehel bay xaq ku leeyihiin oo sponsor u sameeynaayo dadka kalena waxa waaye oo aan ku faraxsaneen meesha ehel iyo asxaab iyo dadku ma laha dad u dhoofo ma jiro oo kafaalo qaadi karo dadkaas saas uga adag tahay kuwa kale ku farxayn hadda ehelkooda iyo qaraabadooda meesha jooga marka waxaan aaminsanahay waxyaalo kastoo faa'iido leh inay caqabad ay garab socoto anaga marka maadaama xag ehel iyo qaraabo iyo waxba noo jirin fursadda kaliya aan sugayna waxay tahay UN inay soo dhajiso oo dib u dejin loo sameeyo oo sidaas fursad aan ka helno oo aan si qaxootiga loo qaadi jirin loo qaado Cabdisalaan Salas VOA xeryaha dhadhaab ma aha dadka qaxootiga ah ama muhaajiriinta ah kuwa barnaamijkan uu saameeyay sidoo kale waxa uu saameeyay Soomaalida ku nool Mareykanka oo telefono iyo su'aalo weydiin joogto ah oo la xiriira barnaamijkan kala kulmaya eeladooda qaar ka mid ah oo uu wariyaheena Maxamuud Mascade kula hadlay Minnesota ayaa barnaamijka Elayska VOA uga warramay sida ay barnaamijkan u arkaan iyo noloshooda Mareykanka magacayga waxaa la yiraahdaa Maxamed Cali Axmed oo waxaan ku magac dheerahay Deqow Mareykanka waxaan imid 1997 ilaa iyo hadda ayaan joogaa noloshayda iyo sida ay tahayna waa mid isbedel weyn ku dhacay waqtiga imid ilaa iyo hadda oo aad u wanaagsan ma sha Allah alxamdulillah aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay sababtoo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ognahay inay wadamo adduunka ay ku firaarsan yihiin ayagoo qaxootiyaal ah isla markaasna ay hold ay ku jireen qaxootinimo in lagu keeno waddanka Mareykanka ayna ku dhibaataysan yihiin xariiq qaxooti oo aad u fara badan oo dunida dacalaheeda kala jira ah runtii waxay wax ka bedeli doontaa dhammaan dadkaas qaxootiga naga ah oo aan imaan karin waddankan ilaa iyo markii sharcigan hadda soo baxay uu ogolaana inay yimaadaan ay ku yimaadaan waddanka Mareykanka ay wax ka bedeli doontaa noloshooda inay wax ka bedesho oo ay nolol ay sameystaan mustaqbal leh mid ilmahooda ama mid reerkooda ayaan jeclahay inay wax ka bedesho hadii Ilaahay raali ka noqdo runtii waan jeclahay in aan uga faa'iideeyo dhammaan familkeyga inta asleeyahay wax way ka qabsan karaan waddanka Mareykanka ama ha aato waxbarasho ama ha aato shaqo labadaba taariikh ahaan Soomaaliya sidii civil war ka u dhacay oo qaxootiga aan u soo yaacnay since 1991 oo waddanka ugu horeeyay qaado oo wax badan noo fiidiyo wuxuu ahaa waddanka Mareykanka ilaa iyo muddo way socotay qaxootinimadaas oo dadkeena waan keenayna ilaa iyo ay ka istaagaysay qaxootinimada dadka ay yimaadeen waxaan ognahay marka dadkaas faraha badan ee la soo qaaday nolosheena Soomaaliya waxay ka bedeshay waa ognahay oo waa aragtay dadkeenii dhaqaalaha heleen noloshoodii waxbaan ka bedelnay lacagii aan diraynay oo waddankeena galeysay xataa dhaqaalaha waddankeena kor ayay u qaaday marka waxaan rajaynayaa dadkan kale oo cusub imaan doonaan waxay fududeyn doonaan oo kaliya ay culaabta ka qaadayaan lacagaha anaga kaliya aan dirayno waxay nala qaybsan doonaan in lacagii dib ugu celino waddankii dhaqaalihiina uu sii kobco Soomaaliya maanta waxa u malaysaa inay ka duwan tahay sidii hore waxaana sabab u ah aniga aan aaminsanahay since 1991 dadkii lacagta u diray Soomaaliya ee qaxootinimada ku yimid wadamadan reer galbeedka gaar ahaan waddankan hadda aan joogno Mareykanka fursaddan waa fursad aad u wanaagsan waxaan Ilaahay ka baryaa in ay noo fududaato hadii Ilaahay raali ka noqdo bismillaah magacaygu ugu horeyn waa Taqi Bashiir Xasan Mareykanka waxaan imid 07kii ayaan imid ilaa hadda 14 sano ku dhawaad ayaan joogaa waxaana ka imid dalka Pakistan actually hadda PhD holder ayaan diyaarinayaa xagga waxbarashada ah waana shaqeeyaa alxamdulillah rabbil caalamiin nafteeda iyo ummadeedana wax waan taray alxamdulillah horta sida dabeecadda ka dalkan laba magac ayuu caan ku yahay land of opportunity wax la yiraahdana waa la yiraahdaa land of immigrant waa la yiraahdaa halkaas macnaha qof walba oo jooga waa la kala horeeyay mahane cadaan iyo madow wixii la ahaadaba waa muhaajiriin waddanka yimid hadba qof sida had nibo taagtiis iyo tabartiis sida uga faa'iideysto
ayay dalkan ay tahay macnaha dalkan dad gooni ah ma lahan arrintan iyada ahna riile aad ayay ii farxa gelisay group 5 sida uu dadkayga horeeyay walaalahii deeq uu sheegaybo dee waxtar xoog leh ayay u leedahay wayna ka duwan tahay aan filayaa xilliga aniga aan imid oo waddankan dhaqaalihiisa uu aad u hooseeyay shaqo la'aan ay jirtay laakiin waxaan isleeyahay arrintan iyada ah in waddankii fursado opportunity shaqo aad u dadkii oo retire noqday COVID-19 dhibaato badan dhacday meel walba hadda ay haya ku qoran tahay actually way jiraan qoyskayga reer Bashir Xasan qoys badan oo walaalo badan oo maqan awalna meel aan u marna aysan jirin laakiin iminka sida aan rajeynaa insha Allah inay noqdaan dadka ugu horeeya ay yimaado ay ka faa'iideystaan dadkan inta badan waa ku gubaabiyaayo dee waa wax hadda maaragtay aysan dhiigna ku xirnayn saaxiibtinimo friendly casabiyad dadka lagu keeni karo waa jaanis aan hore loo arag riila groupkan isaga ah haddii suurta gasho waana wax weyn way ka tari doontaa isbedel ummadda Soomaaliyeed khaasatan dadka dhalinyarada ah magacayga waa Yohanes Yusuf waddanka Mareykanka waxaa imaaday dawladda Soomaaliya oo nabad ah ilaahay mahadiis ilaahay inta soo nagu dhaqay waa ku noolnahay waddan fiican waaye ilaahay nagu ammaan yeelo waxaan maqlay program la yiraahdo maartay in Soomaalida maartay imaanayso oo qaxootiga la keenayo oo wax fiican qofkii rabo inuu waddanka arko opportunity-giisa maartay ka faa'iideysto ixtiraamo sharciga iyo waddankan maartay dhaqankiisa annaga si kastoo muslim u nahay meelba aan tagno waxa fiican in edeb la tagno waa soo dhaweynaya ra'yi fiican waaye waxaan dhihi lahaa qofka ilaahay calaf u geliyo inuu ka faa'iideysto wallahi dad badan oo way ka faa'iidi doonaan saan rajaynayo wax walbana waa calafka ilaahay qofka ilaahay saanti soo qaad meeshaan yimaado faa'iido weyn oo keelaya inay caruurtiisa wax bartaan asiga shaqaysto horumar gaaro waddankeena dhisano oo gurigeena Soomaaliya hooyo hadii ilaahay yiraahdo wallahi ani waxaan u hadlayaa horta Soomaali ahaan dadka hore ka dambeeya magaca Soomaaliya wali wataa alxamdulillah laakiin maadaama familkayga qofna uusan ka maqneen alxamdulillah oo generation dhan inta u wada badan yihiin haddana waa jeclaan lahaa dad badan oo walaalay inay jaaniskan ka faa'iideystaan oo maartay opportunity-gan aysan ilaahay nooga soo qaaday dawladda Mareykanka inay maartay ka faa'iideystaan waa rajaynayaa aad u maasanta ما شاء الله مقعي وحال لها فرحي تهليل مريكن كا وحن كوي مع القحوتنمو UN تا كانت UNHCR وسنة كان هدو هاي كوي 8 سنة جوجا ما شاء الله بروسس في عنا هاد وانا برواقوني شخصيا برنامج جروب 5 كمركا مقلي هذا ugu farxay hadana shuruudihiisa markii loo sheegay oo la dhahay waxa ko priority la siinaya mudnaanta ugu horeyso dadkii awal ku jiray qaxootiga marka dadkaas intaas oo sano xiriyaha ku jireen jaaniskan hadii wax loogu soo kala fududeyna ayaga marka hore xaq u leh wixii soo haraka bacdina dadkii ka faa'iideysanay cidna kama hor istaagaysa laakiin ko waxaan dhihi lahaa aniga aad ugu farxay go'aanka in dadkaas marka hore mudnaanta la siiyo wallahi telefonkii kala qaadis male 24/7 waa la soo wacaya barnaamijkaas ka warqabtaa la leeyahay baadiyaha dhuusan mareeb dadaan uga soo direen linkiga arinta ama la socotiin la dhahay marka dadka ayaga ka dhag dheer waan jeclaan lahayn qof walba inuu jaanis helo laakiin yaal kala gaara waay qofkii ilaahay uga faa'iideeyana waa kaalmeynayna qofkii kale tan nasiibkiisa xaashi shaafi oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha Soomaalida Mareykanka madaxna ka ah hay'adda Somali Action Alliance ayaa walaac ka qaba dad badan oo sheegay in barnaamijkan lagu laabkiciyay intaas ku dali lahaa tala ahaan aan isleeyahay waan kula talin lahaa shacabiyowga Soomaaliyeed caalamka gudihiisa daafiisu kala nool ama Soomaaliya ha joogaan ama wadamada Afrika qaxootiga ha joogaan waxaan maqlayay dad badan inay hadda aaminsan yihiin in Mareykan marka la keenayo qaxootiyadu ay tagaan oo iska diiwaangeliyaan arrinkaas sax ma aha dadka waxaan oran lahaa aan la barakicin guryahoodii noloshooda waddankooda dib ugu dhistaan waddankeennii baa hadda soo toosaya bidnillaahi kariim cadowgii weynaa ee runtii muddo ah ummadda ay u xayirneedna waxaan rajaynayaa mar dhow in laga takhalusi doono meelo badanna maanta waa laga xoreeyay marka waddankeennii waddankaas qaaliga aan wada leenahay kulligeenna aan tabayno waqti un inaan u laabanno kuwa aan joogayaan leeyahay aysan soo bixin oo yaysan la barakicin wax beenna ayaan loo sheegin cid Maraykan idin keenaysaa ma jirto Maraykan saas laguma imaado ma sahlana guryaheena iyo lifekiina ayaan idinka soo burburin noloshiina aad haysateen haba idin qallafsanaato yaan leeyahay yaa idin wanaagsan taxariiq qaxooti ku jiri lahaydeen dad baa ilaa hadda 30 sano ku jira xariiq qaxooti intaas rajo ku nool lahaa ilmihii lagu dhalay baa ilmo ku dhalay marka kuma rabo xariiq qaxooti waa dareemi kartaa xanuunka ay leedahay marka fadlan talada iga tahay tala walaalnimo tala Soomaalinimo
talo khabiir aan isleeyahay aqoon u leh howlahan inaysan sahlanayn marka fadlan dad kale taasaan ku waanin lahaa inkastoo wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ay ku tilmaantay mashruucan welcome corps hindisihii ugu wanaagsanaa ee dhinaca qaxootiga oo ay dowladda maraykanka ku dhiirato muddo 40 sannadooda haddana wadamo badan oo kuwa horu maray ah ayaa deeqsinimo u muujiyey qaxootiga oo soo dhaweeyey turkiga ayaa martigeliya tirada ugu badan ee qaxootiga dunida isagoo martigeliya 3.7 milyan oo qaxooti ah dalka Colombia oo ku soo xiga ayaa martigeliya in ka badan 2.5 milyan dalalka Pakistan iyo Uganda ayaa iyana kiiba in ka badan 1 milyan oo qaxootiya uu martigeliya sida ay sheegtay qaramada midoobay guud ahaan dadka lagu qasbay inay guryahooda ka cararaan oo qaxootinimo ay doortaan ayaa qaramada midoobay ay ku sheegtay inay ka badan yihiin 103 milyan oo qof intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay mashruuc cusub oo qaxootiga ku saabsan oo uu dhowaan Maraykanka ku dhawaaqay barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colad Xasan cidii uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama bogga iyaga Facebooka intaan barnaamij midkan la mida ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo mahadsanid colaad barnaamijkaasi waxaad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee VOA